بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa oo si toos aan uga salaamayaa walaalaha gurmad ee ururka gurmad relief ballaaran runtii jazakumullahu khayran meelaha faraha badan ka soo qayb qaatay meelaha badan maxay hay'adii ka geystay sadaqooyinka waxyaabo badan markaasi fuliyay ilaahay waxaan ka barnaa subhanahu wa ta'ala in miisaanka xasanaadka ugu daro wax kasta oo ay walaalahaasi fuliyeen ama ay qabteen ama ay u niyoodeen runtii wali ilaa hadda waxaynu ku jirnaa barnaamijkii khayriga ahaa haddii ay tahay xagga biyaha iyo haddii ay tahay mararka qaarkood waxyaabaha daariga soo diri kara ee sida yara gaarka loo qaban karo ee iskaba fudud insha Allah sida leedkan oo kale ama iftiiminta xaafada waxyaabo kale oo iska iman kara oo iyaguna jaanibiya marka arina waa arinteeni mug iyo miisaanka lahayd ee weyneed ee runtii تعبك فرها بدن إيو فكرك فرها بدن إيو هوش بدن إنها قشي أو بيها أرينا وحوي أرمهن كوكوان إنه قلبك قريب قادن إنه رنتي إننا ندر قلين إيو نشاط يفر فرعوني نوعه رنتي وعي أرنتان مركزي افتيمين رنتي إنه قريب قادن أما أورك كورنا ريليف وقبل اللي بحلقة قاتو مركبك باقي يسقو إنه بحنا يو وحي وتاكتي ساعة أي قريب قادن يعني وحن لنا جزاكم الله خيرا وحين كجنا قولك إلهي لي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحي حن يوحي اللي بعطاء اسمه كان المسنة إنه وحين يسوك المسنة على كعبسك وحين يسوك المسنة ضاعد إلهي وحين يسوك المسنة برك إيا على كعبسك وحين يسوك المسنة سيدي أين دتك أن الدنيا طاعه باهن أين وحقوق قبل لهين إسلامك إفتينك وجالسين لهين بيها وجالسين لهين وضد حقوق قوان إنه استحاضة إيا عافماتك waxbarashada iyo wixii kale la halmaala kolba taagteena aynu qaban kareyno runtii arintan imika groupkan walaalaheen ayaan la yaraga kala ama ya haweenkuba ay garwadanka ka yihiin sida fiican ay u wadaan jazakumullahu khayran waynu maxay heedeen waa si fiican buu gurmad relief ugu bari taageeray oo ay wax ugu qabteen oo ay runtii heel ugu noqdeen walaalaheenaasi waxaan aad iyo aad ugu duceynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay iftiiminta markaasi xaafada iyo deegaankaba insha Allah waxaan ilaahay uga rajeynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwa markaasi qubuurtooda ilaahay uu nuurinayo kuwa ilaahay qiyaamaha meelo badan baa madow meelaha nuur iyo iftiin baa lagu dhaafayaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa nuuraya ee iftiimaya sida jidka siraado kale kuwa iftiin walalaca oo baaxad badan isla markaana surca iyo degdeg ku dhaafa ilaahay ka dhiga subhanahu wa ta'ala runtii nuurka maanta halkan aynu sii bixisana waa nuur berrito leena anfacaya ilaahay waxa uu leeyahay subhanahu wa ta'ala munaafiqiintiisa oo ka waramaya yawma yaqulu almunaafiquuna wal munaafiqatu lilladheena aamanu dhuruna an naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura marka banka qiyaamaha la taagan yahay mugdiga marka la soo galo ayaa munaafiqiintii leedku ka dameeyaa dabeeto waxay oranayaan muuminiintii nuurka sitay ku oranayaan nuurka wax naga siiya waxay oranayaan nuurka halkan lagama samaystee nuurkii dib u noqda iyagu waxay uga jeedaan muuminiintu ifkii ka soo qaatay ifkiina laguma noqon karayo marka dib bay soo noqonayaan faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fihi arrahma wa dhaahiruhu min qibalihi al'adaab taad iyo gidaar bay ilaahay dhexdhigayaa dhinaca shay munaafiqiintu xigto iyo dhaalimiintu waxa weeyaan waa cadaab dhinacan muuminiintu xigtaana waa naxariis waa la kala teedayaaba mugdigii bay ku jiraan iyo gudcurkii runtii nuurkaasi waa hidaayada iyo iftiinka waxa soo galaya oo kale ruuxa sadaqa ahaan ula baxa wixii nuur ah wixii iftiin ah runtii way soo gali kartaa muuminiintu way ku duceysteen rabbana atim lana nuurana waghfir lana marka ilaahay nuur siiyo ee gacmahooda xaggooda hore iyo dacaladoodba ama dhinacyadooda ay iftiimayaan ayay ilaahu yaanu naga baqtiyeen ilaahu iftiinka noo siyaadi marka iftiinka waa hidaayada iftiinkii markaas waa hanuunka iftiinkii waa tacliinta iyo waxbarashada iftiinkii xitaa waa nuurka laftigiisii oo ruuxu uu bixisanayo intii xaafadeena meelo badan baa madow meelo badan baa habeenkii laga cabsanaya iyadoo ciidba joogin oo aan maxay ahayd waxba lagu geysanayn ayaa hadana mugdi daraadeed aanad mari karahay meelo masaajida ku beegan meelo maxay ahayd dukaana ku beegan meelo laga soo adeegto oo dadku ay wax ka doontaan ama caanaha ka doontaan ama dhuxula ka doontaan wax kala ka doontaan oo ilmihii yara ama cidii la dirayay mugdi daraadeed aan markaas loo diri karin de ruuxa iftiimiya
markaasi maxay ahayd leed ku saara runtii ruuxaas wax weyn buu soo kordhiyay bilicdii wax uu ka qayb qaatay deegaankii wax uu ka soo kordhiyay dadkii maxay ahayd sadaqo uu bixiyay waa loo duceynayaa iftiinkaasi wax weyn baa markaasi ku jira runtii jazakumullahu khayran marka ruuxa de iftiimiyay halkaas iftiimiyay ilaahay waxaan uga barinaa ilaahay qabriga uu iftiimiyo oo ilaahay qiyaamaha uu iftiimiyo oo ilaahay jidka siraad uu iftiimiyo walaalaha ka qayb qaatay waxaan leeyahay jazakumullahu khayran waa leedinku yaqaanay biyihii baa ka qayb qaadateen caafimaadkii baa ka qayb qaadateen tacliintii baa ka qayb qaadateen maantana iftiimintii baa ka qayb qaadateen wixii kale yimaadaba kolba waa ka qayb qaadanaysaan wa nahnu macakum insha Allah anaguna waa ka qayb qaadanaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa muraadidiina maxsanayn Allah idin siiyo dambigiina Allah dhaafo awlaad Allah idinku barakeeyo cidii awlaad haynina awlaad wanaagsan Allah ku siiyo ragga ilaahay haynoogu wanaajiyo dumarka Allah haynoogu wanaajiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala shaqooyinka Allah idinku wanaajiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga maxay heeday ducada aqbala Allah inaga aqbalo ilaahay abaarta Allah inaga soo jafo waalidiinteeni u bixiseen qabriga Allah ugu nuuro ilaahay qabriga ugu nuuro oo qiyaama Allah ugu nuuro oo ilaahay halka ku gaarsiiyo oo ilaahay inaga aqbalo ilaahay naga aqbalo naga ajiib daacad bay naga tahay ikhlaas bay naga tahay taqarrub iyo u dhawaansho adigaan kugu dhawaanno isla markaa tulkay dadka masaakiinta wax ugu qabanayno ay noo tahay ilaahay uu naga aqbalo naga ajiib way koobantay walaalayaal laakiin ajarkeedu wuu badan yahay marka ayaan la yaraysanin ruuxii laambad laba laambadood saddex laambadood ka badsanaya waa iftiinkaagood waa gurigaagood intaasoo iftiin ku sii xidhay waa gurigeenu intaasoo iftiin lagu sii xidhay marka insha Allah arintaasina waxay noo noqon doontaa arin la inaga daydo oo deegaanada kale iyo dadka kalaba in aynu horseed noqono barnaamijyo kale oo wanaagsan ba insha Allah inoo iman doona oo wax qabada marka ruuxa ka qayb qaata wado maxay heeday qodax ka gooya ka maxay heeday dhirta saara geed soo saara ka biyaha ka caafimaadka ka waxbarashada ka agoonta ka maxay mid walba ilaahay halkiisu ku siinaya marka barnaamijkaasna waa barnaamij imika inoo kacay waa barnaamij runtii xaafadeena qayb wax la ka qaadanaya iyadoo imika xaafadeena soo suuqowday oo dadkeena ay aad u degeen oo ay soo fahmayaan baaxmushirkeedii oo ay soo fahmayaan in xaafadii aan la dhaafin ay aad u fahmayaan hadii iftiinkaan loogu daro insha Allah ilaahay wax ka rajeynaa in ay wax sii taransan doonaan wax qaban doonaan wajazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh